Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Axlaam Cooking. Maanta waxaan sameynayaa recipe yar oo fudud. Waa koosto, malawax iyo chicken iyo qudaar. Marka hore waxaan sameysanaynaa malawaxa kaloo iska garanaysan malawaxa waxa laga sameeyo iyo sida la isugu dardaro. Waxaan soo dhaweynayaa asxaabta nagu soo biira subscribe noo saara please subscribe saara like na saara videoga. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Waxaan ku daray sonkor, saliid iyo 2 xabo ukun ah. Kadibna waxaan ku daray burkii. Kadib waxaan ku daray in yar oo fixiso ah. Waa ku bedelan kartaa baking hadaa haysato ama fixiso labadaba ka jecesha isticmaali kartaa. I prefer aniga fixisadan ka doorbida. Waxaan kale ku darayaa waxa weeye caano. Malawaxa waxa fiican inuu si fiican u jilco yani inuu adeegyo ma fiicna. Malawaxa inuu jilco ayaa fiican si jilicsan ku noqdo. Gacanta waa ku sameysan kartaa laakiin mishiinkaas ku sameystay. Dabka soo saarnay malawaxa mid weelna. Kaasa sida quruxda badan bay noo noqday maasha Allah yani. So beautiful. Dhowr xabaan tusay laakiin wax badan buu xasaas ku soo wada dhameeyay. Saasoo ku soo wada dhameeyay. Inama wada tusin dhowr xabaan si hadaan wada si video wuxuu noqonayaa 40 daqiiqo. Ay noqonayaa laakiin xogaa ayaan tusay dhowr xabo. Kadib halka waxaan sameysanaynaa chickenkii. Halka waxaan ka sameeyay chicken thigh lugaha maaha lugaha adi. Chicken thigh baa la lugaha maaha adi waa fiimarta lafta weeyaan xagga lugaha ka sarreeyaan. Chicken thigh la so kaas baan haysanaa kaas baan jarjaranaa. Chickenka qaybta haysato waa isticmaalka wixii talaagada ku jira wixii haysato. Hadi chicken halkaas ku soo diyaarsanay chickenkii soo jarjaranay. Lafaha waa iska reebay laakiin hadda rabto waa lafaha inuu waqti yar dheer bay baahan yihiin la shiilo lafaha waa iska reebay hilibkun baa ka goostay. Halka waxaan ka haystaa xabad basal ah basasha waan soo jarjaray. Afar xabo oo toon ah toontiina waan jarjarayna. Kadib halka waxaan ka haystaa kaabash. Isna waan jarjaray halka waxaan kale ka haystaa xabad weyn oo kaarota. Iyana waan soo jarjaray waan soo dhameeyay. Xabad barbarooni ah. Waxaan ku soo 3 xabo basbaas ah. Marka markaan soo wada jarjartay kadib maqlig weyn saliid ku soo shubanay iyo soo diirinay. Kadib basasha toonta ku shubanay. Waa kala horeysiin kartaa waxa yar fiican basasha yar horeysiisa toonta hore u gubata. Ani laakiin waa degdegay hal mar baas ku daray. Kadib waxaan ku darnay kaarootada yar adag tahay si ay yar bislaato. Kadib waxaan ku darnay basbaaska.
kadib waxaan ku darsanay chickenkii ama dooradii. kadib waxaan ku darnay halkaan ima duubin yaanyo dhowr xabo yaanyo baan ku daray, xawaashkii baan ku daray, filfishii baan ku daray, xawaashidaan ku daray xawaashyo fara badan isku jira. waxaan kale ku daray shiidii ama qasaacdii. kadib waan soo dhexgeliyay, waan isku soo wada walaaqay. kadib waxaan ugu dambaysiinay kaabashka, sababtoo kaabashka ani waxaan jeclahay inuu yara taagan yahay, laakiin jikka si fiican waan bislaynay ilaa 8 daqiiqo ayuu si fiican usoo bislaaday. kadib waxaan ku darnay kaabashkii. kaabashka ma jecli inuu biyo noqdo, wax biyaana kuma darin, waxaan jeclahay inuu yara taagnaado. waxaan ku daray hadda cusbadii ama milixdii. kadib waxaan ku daray mulqacad wax leego biyo ah ama qaado wax leego biyo wax yar. kadib waxaan ku darsanay barbaroonigii kama dambaysti. yaro kama salaan ku qurxiyay, wallahi aad buu macaanaa, yani si fiican sidan hadaad u samaysato for sure yani si fiican buu ku noqonayaa. kadib waan ka baktiyay dabka. kadib waxaan samaysanaa koostadii. halkan waxaan ku haystaa koosto ama spinach soo maydhay, si fiican isaga maydh, ciid iyo waxaas yeelataa. wixii xunxun iska jarjar. soo jarjaray koostadiina. kadib maqligii aan ku shiilnay chickenka ayna waxba maydhin ayaan saliid yar ku darsan, wax yar ha isku badin saliida. kadib waxaan ku shubanaa koostadii. kadib walaaqanaa, si fiican bisu dhex gelinana. wax yar oo cusbaa baan ku daray si aad inooga jilcido ma doonano, sidaasaynu kaga diminanaa dabka. kadib waynu ridanaa cuntadii aan soo samaysanay. halkan waxaan ku haysanaa chickenkii iyo qudaartii isku jirta, chicken ma. waxaan kala haysanaa koostadii. waxaan kala haysanaa malo wixiisna aan soo samaysanay. kadib waxaan ku darsanay liin dhanaan sidaa quruxda badan wataa inoogu soo baxday. dhammaantiin waa mahadsantiin, fadlan subscribe and like saara videoga. dhammaantiin waa mahadsantiin.